بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبغي داوديال رمضان كريم دمانتين بأطباء بالبرنامج كان عاوة وحنقص قادنا إسلامك يسيدي وبدلي دنيدن هذا بدونيدني وحيقصون الإسلام كقهر عصر الريغاني عصر مودية صوبت اللوجو بحي عصر موديونا وحياحد إن دنيدا لوجو ممري حركة كينتا هذا بحركة كينتا يا أها متكلسن إن qofka uu ka awood badan yahay uu adoonsado uu dulmiyo kaas oo aan ku salaysnayn wax dhaqan iyo aqoonta midna ahayn balse markii uu islaamku soo digay waxa uu jideeyay ama uu u sameeyay tiirar kuwaas oo ay ugu horeyso tiirarka islaamka ka hor hadaba dadku waxay caabudu jireen ilaahiyo kuwaas oo iyagu gacmahooda ku sameysteen kuwaas oo aan wax saameyna ku lahayn abuuritaanka dunida iyo maamulkiisa iyo walibana awoodda uu Allah u leeyahay wax kasta oo ka dhaxdhacaya koonkiisa balse dadku waxa ay rumaysnaayeen aqoonooyin qaldan kuwaas oo ah in la caabudo wax ilaahay ka sokeeya balse hadaba islaamku markii uu dunidan ku soo degay waxay ahayd 610 miilaadiga waqtigaas ayaa islaamka waxa uu jideeyay xeerar kuwaas oo ay kamid ahaayeen in la qiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala iyo nabigiisa Maxamed oo aan la shariik yeelin lana caabudin wax kale kuwaas oo dadkii uu ku soo degay waxyigu nabi Maxamed oo alayhi salaam u ahaa hormuudka ay aad dagaal uga horimaadeen inay ku jeesjeesaana ay bilaabeen kuwaas oo yiri waxaanu caabinaa hal ilaah anagoo haysana 360 ilaah ayaa waxa aadna leedahay waxa soo dhan intaad ka tagtaan waxa aad caabudaan hal ilaah balse Allah subhanahu wa ta'ala xikmadiisa ayaa uu Allah dadka qalbiyadooda ku halanayay taas oo suuro gelisay in ummadda islaamku ay ku soo dhiirato inay kasoo haajiran mugdigii ay ku jireen hadaba shanta tir islaam ayaa ahaa saldhigga ugu horeeya ee islaamka laga soo galo oo ah albaabka koowaad ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah qiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala iyo nabigiisa Maxamed alayhi afdal salaatu wasalaam qodobka xiga ayaa waxa uu ahaa in uu Allah loo gaar yeelo cibaadada sida salaada soonka sakada iyo waliba xajka iyo sakadu labadaasi waa man istidaaca ilayhi sabiila oo idii ilaahay maal siiya ayuun baa sakada bixin kartaa xajkana aadi karta hadaba balcaawa barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh